मम्मी मम्मी मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे मेरे को। अरे वाह, आज फाइनली बाबू सोना जादू waxaa jirta xaasas xanaaq badan iyo kuwo saygooda si joogta u aadeeya iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan haddana ma jirto cid ka adkaan karta khiyaanada iyo awoodda sodohda majaajilo uu sameeyey qoraaga Britishka ah ee lagu magacaabo Chesterton waxa uu sodohda ugu xun ku tilmaamay cirfiid isagoo sidoo kale sodohda ugu fiican ku sheegay inay dhibaato tahay waxaa loo arkaa xukun doon inay yihiin sodohyada waddanka Hindiya oo sidoo kale laga sameeyay shactiro iyo kaftan naxariis darro dumarka ugu badan ee dalkaasi kadib marka la guursado waxaa la geeyaa guriga qoyska ninka xiriirka ay sodohda la yeelanayso waa mid aad muhiim u ah sidoo kale khibradeeda nolosha waxa ay marmarka qaarkood noqonaysaa mid sumcad xumo ku ah sodohda haddaba sodohda waddanka Hindiya u dhalatay waxaa alaaba lagu soo bandhigaa dhibaatada aan dhamaadka lahayn filimaanta Hindiga ah ee lagu magacaabo Bollywood waa qof maamul adag baa la yiri oo amar badan oo awoodda maamulka qoyska iyo wiilkeeda kula loolamaysa gabadha ay sodohda u tahay markasta waa musalsalada ugu dheer ee waddanka Hindiya marka sodohda laga hadlayo haddaba sodohyada waddanka Hindiya waxaa lagu sameeyaa cilmi baaris aad u culus taasoo ay suurtagal tahay in markii ugu horeysay ay tahay ee dabeecadooda iyo dhaqankooda la baaro sanadkii 2018 cilmi baarayaal ka socday jaamacadaha Boston iyo Delhi waxa ay wareysteen 671 dumar ah kuwaasi oo lagu guursaday da'da 18 ilaa 30 sano waxaana ay ka soo kala jeedeen 28 tuulo oo ka tirsan degmada Jaipur ee gobolka Uttar Pradesh waa deegaan ay dadkiisu aad ugu dhigan yihiin dhaqanka tirada dadka halkaas ku noolna waxay u dhigantaa bulshada dalka Brazil oo dhan da'da celcelis ahaan dumarka waa 26 sayiduna waxa weeyaan 33 kuwa ugu badan waa Hindu cilmi baarayaashu waxa ay dumarka weydiiyeen noloshooda iyo xiriirka ay bulshada la leeyihiin sida qaraabada iyo asxaabta ay guriga kula nool yihiin cilmi baarayaashu waxa ay dumarka sidoo kale weydiiyeen noloshooda iyo xiriirka ay bulshada la leeyihiin sida qaraabada iyo asxaabta aan guriga kula noolayn waxa sidoo kale la weydiiyay kaalinta ay sodohdu ku leedahay inay dad kale la saaxiibaan waxa aan meesha ka maqnayn weydiinta la weydiiyay madax banaanidooda iyo in xarumaha caafimaadka ay aadi karaan waxa ay cilmi baarayaashu ogaadeen in dumarka la nool sodohyadooda ay haystaan xorriyad aad u xadidan iyo inaysan awoodi karin inay dad kale bartaan ku dhawaad 36% dumarkaasi waxa la ogaaday inay saaxiibo ama qaraabo dhow aysan ku lahayn degmada oo dhan marka laga reebo sodohda sayga inta badan dumarka Jaipur waxa ay la hadli karaan laba qof marka ay xaaladaha muhiimka ah ay ka sheekaysanayaan baaritaanka ayaa waxa lagu sameeyay laba koox oo dumar ah kuwaas oo la nool sodohyadooda iyo kuwa aan la noolayn waxaana la isbarbar dhigay tirada saaxiibo ama qaraabo dhow ay halkaas ku leeyihiin waxa ay cilmi baarayaashu ogaadeen in haweeneyda la nool sodohdeeda ay ka asxaab yar tahay 18% kuwa kale sodohdu waxa ay xakamaysaa xiriirka bulshada gabadhu ay la leedahay iyadoo aan u ogolaan kaligeed inay meel booqato marmarka qaar sodohda waxa ay doonaysaa caruur aad u fara badan gaar ahaan wiilal badan taasoo gabdhaha aysan rabin xilliyada qaar 48% dumarkaasi waxa ay sheegeen in sodohdoodu aysan ogolaan yaraynta dhalmada haddii ninku uu meel kale ka shaqeeyo sodohdu waxa ay aad u ilaalisaa dhaqdhaqaaqa iyo socodka gabadha inta badan gabdhaha yaryar ee la qabo ee ku nool tuulooyinka waddanka Hindiya dad yar ayay kala hadlaan arrimaha gaarka u ah si kastaba ha ahaatee cilmi baarayaashu waxa isku raaceen in la noolaanshaha sodohdu uu caqabad weyn ku yahay madax bannaanida haweeneyda la yaabna ma laha in cilmi baarayaasha ay warbixintooda ugu magac dareen habaaridda Mumiji oo sodoh macnaheedu yahay taasoo ah hadal maldahan oo wargeyska dhaqaalaha lagu qoray 2013 kaasoo looga hadlayay warbixin ku saabsaneyd sodohda u dhalatay Hindiya سعيد أحمد تمريسي وررك التلفزيون كعالمي قاها ستار